marka le waxa qiimeyn doona muuqaalada soo idin gareyseen isla markaana fikir ahaan idinku darsan doona maraw inaa waqti badan iska dhumino markaan waxa isku jiraan wiilal iyo gabdho marka aan aragno waxa rabaa inaa u cidir daarto intii ala soo qaadan waaye waa qiimeeyay ayaga dhan waa wada daawaday intii top level ka soo qaatay qofka ugu horeeyana waa gabar magaceeda waxa la lahaa nuura maxamed la lahaa maxaa keena in computerkaaga uu culus noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo halkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culays weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad waxa computerkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culays weyn tan saddexaad versionka Windows kugu jira iyo programka ay isticmaalayso inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only ah kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest ah marka haddii aad isticmaalaysid latest programs waa inaad isticmaashaa latest Windows version sababta afraad waxa si computerkaaga meel uu ka neefsado marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxa aad u shaqeeyaa computerka marwaxadiisa taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culays iyo kulayl inuu computerka noqdo aad iyo aad muuqaalka u fiican yahay markii laga reebo muuqaalada qaar waxyaabaha qaar shaashada ku heynaysid cabaar in waxay fiicneed in markaas waxyaabo kale aad isticmaashid mid kalena waxa waaye animationada soo gelinaysid sawir sidiisa ah inta soo gelin lahayd icons ama text raaci dadka qaar calaamada Windows inay aqoonina laga yaabaa aba inta kale oo ku fiican yahay muuqaalkaaga markale hadaanan iloobin waa gabar muuqaalka way soo edit gareysay sidaas darteed rate-kaaga wuxuu noqonaa 10/5 insha Allah laakiin waxa rabaa in next time soo update إن شاء الله قف كحجة وحواي قليل عويل نن لدها قليل عويل وهاي عن داون مقال كيسة محاكينا إن كمبيوتركaaga oo culus noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo halkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culays weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad waxa computerkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culays weyn tan saddexaad versionka Windows kugu jira iyo programka ay isticmaalayso inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only ah kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest ah marka haddii aad isticmaalaysid latest programs waa inaad isticmaashaa latest Windows version sababta afraad waxa si computerkaaga meel uu ka neefsado marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxa aad u shaqeeyaa computerka marwaxadiisa taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culays iyo kulayl inuu computerka noqdo haddii aad wax su'aal ka qabtid videogan comment inoo soo qor sidoo kale ha iloobin in YouTube-keena subscribe saartid oo profile-ka saaran muuqaalka xiga ayaa noo balan nabadgelyo ninkan qaliil la dhahayo waxa isdhigi karaa saaxib qaliilo design-kaaga caadi ma aan saaxib consistency tahay muuqaalada textiisa soo qaadatay mar labaad soo celisay isla textigaas ninkan hadda wuxuu sameeyay qoraalkii marka hore sababaha uu soo qoray oo sababna uu soo qaatay design-kiisa aad u fiican yahay mid kale waa perfect sida oo animationada uu soo qaadanayo waa okay markii laga reebo marmar oo sawir oo soo qaadanayo overlay-gana muuqaalka waxa yar color uu ku daray malena overlay-ga isticmaalaan xogaha overlay-ga oo fire-ka waa malena mid kale maxaa isticmaalayeen assets-ka oo linkiga isku soo diray waxay ahayd in linkiga kaas isticmaashiin laakiin waxa rajaynayaa next time in isticmaalaysiin marka waxa saaxib rate-kaaga waxa adiga 10/8 aad u dhowdahay saaxib waxyaabo yar ka dhiman ku dhameystir kaliya intaas waa hadda waxaan u xigo nin la dhahay Ciise Cabdalla kii hore uu ku jiray waxa xasuustiin haddana oo soo laabtay wiliba update badan oo la soo laabtay ninkan sidoo kale wuxuu aad ugu helay sida uu falceliseen haddana waxaan rajaynayaa sidaas la mid ah inaad commentiga uu falceliseen Ciise Cabdalla waxa nin horumar jecel waa last time saa ahayd waa ogaa hadda wax badan iska bedelay muuqaalkiisa hal mar aan daawano maxaa keena in computerkaaga uu culus noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo halkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culays weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad waxa computerkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culays weyn tan saddexaad versionka Windows kugu jira iyo programka ay isticmaalayso inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only ah kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest ah marka haddii aad isticmaalaysid latest programs
waa inaa isticmaashaa latest Windows version. Sababta afraad waxa waaye si computerkaaga meel uu ka neefsado. Marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxa aad u shaqeeyaa computerka marwaxadiisa. Taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culays iyo kulayl inuu computerka noqdo. Haddii aad wax su'aal ka qabtid videogan commenting noogu soo qor. Sidoo kale ha iloobin in YouTube-keena aad subscribe saartid oo profile-ka saaran. Muuqaalka xiga ayaa noo ballan ah. Nabadgelyo. muuqaalka su'aal ma qabno marka ugu horeysa aad bilaawaysid sababahaas aad u soo qortay waxay ahayd inaad kala hormarisid sababta koowaad sababta labaad inay hal mar isla soo bixin aad kala hormarisid sida kale inta kale waa okay qaabka oo delete-ka u sameysay local animation-ka local disk miya saa u soo qaadatay waa okay custom animation is u jeeda designers sidaas darteed rate-kaaga wuxuu noqonayaa Ciise Cabdalla markaan kor soo kacday brother waxa ku siin lahaa rate ahaan 10/8 insha Allah waxaan rajeynayaa marka kale 10/10 inaad garaacdo waliba adiga ninka kaliya oo laba mar noo soo laabtaa tahay saaxiib hor u soco horumar ku rajeynaa insha Allah waxaan u xigo Najiib Xasan nin la dhahayo Najiib Xasan aan u xigo maxaa keena in computerkaaga uu culus noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo xalkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culus weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad waxa computerkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culays weyn tan saddexaad version-ka Windows kugu jira iyo programka aad isticmaalaysid inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only ah kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest ah marka haddii aad isticmaalaysid latest programs waa inaa isticmaashaa latest Windows version. Sababta afraad waxa waaye si computerkaaga meel uu ka neefsado. Marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxa aad u shaqeeyaa computerka marwaxadiisa. Taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culays iyo kulayl inuu computerka noqdo. Najiib muuqaalkaaga waa wax kale waxa ku dhihi karaa the king of subtitles ama captions qoraalada captionska ana xitaa uma qori kari maybe template oo jira laakiin af Soomaali oo aanan qofka ku hadlayn automatic ku sameeyeen adina qortid waliba la heshay baash aad u adag tahay niyo subtitle-ka waxa gelisay juhdi weyn captionska ina qortid waxa ku siin lahaa 10/7 waxyaabaha animationska wixii muhiimka ahaa xogaa ku soo dar subtitleska xogaa saartay waa fiican tahay xoga saar meeshaas waxa waa meesha viewerska badan lagu helo laakiin waxyaabaha basic ah sida primary-ga ah ha iloobin sida marka dhahay sababaha ina soo qaadatid intaas ka dhiman saaxiib sidii kale waa perfect subtitle-kaagana sida ku sheegaba oo fadhiya waxaan u xigo Bilaal Cabdullaahi Master Bilal maxaa keena in computerkaaga uu culus noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo xalkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culays weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad waxa computerkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culays weyn tan saddexaad waxa version-ka Windows kugu jira iyo programka aad isticmaalaysid inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only ah kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest ah marka haddii aad isticmaalaysid latest programs waa inaa isticmaashaa latest Windows version. Sababta afraad waxa waaye si computerkaaga meel uu ka neefsado. Marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxa aad u shaqeeyaa computerka marwaxadiisa. Taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culays iyo kulayl inuu computerka noqdo. Haddii aad wax su'aal ka qabtid videogan commenting noogu soo qor. Sidoo kale ha iloobin in YouTube-keena aad subscribe saartid oo profile-ka saaran. Muuqaalka xiga ayaa noo ballan ah. Nabadgelyo. Ordo waa kaga mahadcelina meesha ugu dambeysay inaan YouTube-ka xitaa tagtay taas waxay cadeynaysaa in YouTube-ka xitaa ay ugu xiran tahay bilaalow sidaada kale waa fiican tahay muuqaalka mar walba muhiimadda meesha la saaro waxa waaye bilowgana waa muhiimadda saartay sawirka xogaa ka dhaqaajisay waa fiican tahay saaxiib sababaha soo qoraysid consistency u tahay mar walba sababta koowaad sababta labaad qoraalkii koowaad aad isticmaashay oo soo celinaysid ayadana waa wax ka mid ah muuqaalka waxyaabaha qurxinaya sound effects-ka wax yar aanan balance ahayn iyo meelaha qaar oo hadda markaa soo qaadanaysid labada dhinac kala geynaysid waxa fiicneed in asagii la aad xujisid sidiis kale uu fiican yahay sidaas darteed marka rate-kaaga wuxuu noqonayaa 10/7 insha Allah next time adigoo perfect ah ku arko qof kale ma anigaas waxa la lahaa Mr. Bilal Cabdullaahi saaxib aad uu muuqaalkaaga u fiican yahay consistency design-kaaga wax kasta oo fadhiya waxaan ugu xigay markaan nin la dhahayo Mukhtaar Maxamed
maxaa keena in kombiyuutarkaaga uu culeys noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo xalkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxaa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culeys weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad kombiyuutarkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culeys weyn tan saddexaad versionka window kugu jira iyo programka aad isticmaalaysid inay kala duwan yihiin sababta afraad si kombiyuutarkaaga meel uu ka neefsado marka editing programs ama programmada culculus aad isticmaalaysid waxaa aad u shaqeeya kombiyuutarka marwaaxadiisa taasina waxay keeni kartaa haddii aad cabiriso culeys iyo kulayl inuu kombiyuutarka noqdo waa aamin lahay muuqaalka inuu iga dhamaaday magaciis ninkan مختار محمد صاحب مختار حواي ما أمني قلت مقال قاعد سيدو بيرفكت وياهي ولي بس مركب بالله مقالك لقى ما عاجزها صاحب إن لا دعوة قابك قرالك وصورتي أنيميشن هذا 3D وحكى له صاحب مركي إديتريس وحس أسوق لي سنة أيضا وفي عنده هاي مركي ديليت كعلامة صور معنا وحسنا وبيرفكت نيهو وحاس لي هاي هذه مقالك قابت وقدم بس كبحثت مقال عادي إن استعماشته متكلا سوق لي انت كلا والله بيرفكت صعب ريتك adiga waxa umaleynaa the highest ina tahay ani muu wacday min kan mise comment yaa lagu wacdayna comment dadka waxay ku siinayaan ma arkna misaana ku wacday sax hada ani ku wacdayo fikir ahaantay liibaan ahaan adiga waxa waa 10/9 waxa umaleynaa 9 ilaa hada qof musiin marka 9 qofkii ugu horeeyay qaata tahay waxa umaleynaa waa dhowdahay waliba waxyaabaha qaar leeka qaldan bis waxa comment yaa ku darsanaa waxa waaye tusaalahan marka dhehaysa delete ka oo qofka wax ku daadinaya qoris marka koowaad kor soo qortay delete-na hoos ha dhigtay waxa fiicneed marka kaas dhamaado saas u baxo isla kor le inaad ku sii qortid laakiin dhib ma lahan xogaa animation kor dhamaaday hoos u soo galay hadana confusion waa ayuu hal subject loo yahay marka intaas waaye ma ahane wax kale ma ahan saaxib waxa rajeynaa almost waa joogtaa iska adkay bas waxaan oo dambeeyo waxa ku furanay hada xasuustiin gabadha ku soo furanay muuqaalka gabadha noo furtay magaceeda Nuuro ah hada Nuuro ano bilowday hada Nafisa noo soo xirayso Nafiso muuqaalkaaga daawano maxaa keena in kombiyuutarkaaga uu culeys noqdo ama kululaado waxaan isla arki doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena iyo xalkooda arrinkan waxay dhacdaa inta badan marka aad editing ku jirtid ama aad graphic design sameynaysid sababta koowaad waxaa ku furan programmo badan aadan isticmaalin taasoo culeys weyn ku ah RAM-kaaga sababta labaad kombiyuutarkaaga space waxyaabaha aad u baahdeen dhammaan iska daleed hard drive-kaaga oo buuxa waxa uu keeni karaa culeys weyn tan saddexaad versionka window kugu jira iyo programka aad isticmaalaysid inay kala duwan yihiin tusaale adoo Windows only kugu jira ayaa waxa isticmaalaysaa Adobe programs oo latest marka haddii aad isticmaalaysid latest programs waa inaad isticmaashaa latest Windows Nafiso gabadhan magaceeda Allah Nafiso way dadaashay inkastoo waxyaabaha qaar ay ku heynayso markii sababaha la sheegay sababta koowaad sababta labaad ay ahayd inay kala bedesho sound effects-keeda oo aad hash u ah dheer yani codka dheer iyo meelaha qaar oo soo qaadanayso sawir kaligiisa ee isticmaalayso inteeda kale oo fiican yahay oo fadhiya waxa waaye waa waqti waa gelisay oo jeeda mobile inaad soo dhigayso maleyna sidaas darteed marka rate-kaaga wuxuu noqonaa 10/6 insha Allah adiga waxyaabaha yar kan ka qaldan iska sax sida muuqaalka hal meel ku إلى نوكو عاجزها قفك فيورسكا أنت أصلا وجهي ضمان رياكشن كمقالة دي أكبحيني إن شاء الله وحرجينا next time إنه challenge كلا أسكو معنا إيو تضباطن كي أنا بلنا إن شاء الله challenge حلي أسوي معنا مقال كحاجة يعني نو بلنا نبتقلين باي